nabad geliyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin qofna markii uu dhalanayay ma uusan dooran midibkiisa nasabkiisa hantidiisa iyo cidda uu naqanayo ee haddii aadan abuurka ixtiraamayn abuuraha ixtiraam qofka gudaha ka wasakhaysani ma suuraysto inay jiraan dad wanaagsani dad kuwa ugu dhaqanka xumi waa kuwa marka ay ka caroodaan wanaagaaga inkiraa sirtaada faafiya noloshaadana diida wax aanad ahayna ka sheega waa inaad ilaahay ka filataa wax aanu garaadkaagu sugaynin sababtoo ah ilaahay wax walba wuu awoodaa sheeyadii ugu wanaagsanaa ee aan nolosheeda ku xukumay waxay ahaayeen inaan qof weligay aaminin iyo inaan weligay saaxiib samaysan safar walba oo dheer wax uu ka bilowdaa hal tallaabo tallaabadaada uun xooji noqo hadlaa hadalkiisa la jeclaysto ama hadlaa hadalkiisa laga baqo labaduba dad baa ku dabooba kudhe dadka ka soo horjeeda si walbood ii malaysaan anigu waan ka duwanahay rag iyo rafaad way wada dhasheen ee raxmadda rabbi ha ka quusan xikmaduhu ma fahma qof walba ee xaadiri qalbigaaga